xumadii bay hayn kari weyday dhakhtarkii bay tagtay dhakhtarku imika mishiinka degdega loo baaray shaatanka daqiiqo soo saaray lama hayn markaa waa lagu eegay waxay tiri imisa 4 saacadood buu sugaysaa baa leeyahay arasoor qaday bay tiri horta waa yahay aan seexdaada doontaan maqaaxi hilibka lagu cuno maartay didan bay tagtay haddana way ka soo noqotay hadhow bay magaaladii wada xanuunsan ka daba timid gabadhii baa leeyahay xageed tagtay noo sheeg waxay tiri horta kaniisada waa ka soo ducaystay taa kale waa ka soo ducaystay intii baa la isku cabiray 1250 qof bay noqdeen balaas iyagii waxay sii qaadsiiyeen 5840 bay noqdeen waxa la yiri 60% dalka Kuuriyada Koonfureed dadka qaba gabadhaas ay eersadeen alxamdulillaahi rabbil aalamiin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا ريال مركه هورت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركه اللباد idinko raaliya waxaan u arkay inay tahay waajib saaran dhammaan ummadda in arrinkan xasaasiga ee adduunyadii kaga qaylisiiyay inaguna aynu kelimad ka nidhaahno waxaan u kala saaraynaa dhowr shay oo fudfudud min fadlakum dhagihina yarsiiya waa qodobka koowaad ee horta bahalkan wuxuu ka soo bilaabmay gobolka Hubei la yiraahdo magaalada Wuhan la yiraahdo ka soo bilaabmay waxa la yiraahdaa xanuunada adduunka ugu badan ee daacuunada ah ee aad u ibtilay adduunyada waxa ka soo bilaabmaan dhanka bariga ka soo bilaabmaan waxa kamid ahaa xanuun aad u cuslaayo black death la oran jiray ama black la oran jiray sidii caadiga ah oo ka soo bilaabmay dhanka ka soo bilaabmay oo ilaa iyo Yurub iyo Afrika soo gaaray bariga daacuun culus buu ahaa 200 milyan oo bini'aadam ku dhintay satarta qoris xanuunka labaadna wuxuu ahaa kaasi bakteeriya yarsiin la keenay jirtay jiirka ayaan asal u ahaa u fiirso wixii nabi maxamed inaga xarimay calayhi salaatu wassalaam oo inoo sheegay marka la gudbo bini'aadamku uunba balada la galaya kii labaad wuxuu ahaa nooca loo yaqaan fayoolaha ama small boxiska ama furuq dheh ama fanta dheh kaasoo ha isaguna adduunku waxa la sheegaa inuu dilay 50 milyan agaarkeeda inaga waynu soo gaadhayo gobolada dhan loo yaqaan fanta ku dishay marka la yiraahdo waxa weeyaan xanuunkaas ahaa furuqa waxa ugu dambeeyay 419 ayaa laga helay qofkii ugu dambeeyay magaalada Marka ee Soomaaliya da'daas ma aanan soo gaarin laakiin xafladii caafimaadka markana loo sharaxno loo qaban jiray dhaqaatiir tahay oo ku soo gaaray waa qodobka saddexaad ee ka kale khatarta keenay adduunyada wuxuu ahaa ka laga qaaday khansiirka ama laga qaaday bahalka la yiraahdo khansiirka doofaarka marka waxa loo yaqaanaa Spanish swine flu baa la yiraahdaa 1921 la dagaalkii koowaad dhamaadkiisu bilaabmay ilaa iyo dhowr shidkii uu socday 250 milyan oo bini'aadam u dilay bariga waxa la yiraahdaa Isbaanishka keligii wuxuu ka dilay 35 milyan Spain waxay boqortooyadii muslimiinta dumisay Andalus ee quwadda lahayd bay ahayd waxay maamushay Latin America oo dhan imika waxa ku hadlaan Spanish bay ku hadlaan waxa ka soo bilowday wadamadaas Brazil maxay Argentina Chile waxa oo dhan bay gacanta ku haysay markay dadkoodii uu dhameeyay bahalkaasi de wadamo isku xoreysay xorbatiin baytiri way ma xukumi kartaa ciidana ma xukumi kartaa muslimiintu ma soo martay xanuunkan oo kale daacuunkii Amwaas loo oran jiray waa kii dhacay Umar radiyallahu anhu oo ku socda Shaam markii hore waa kii soo arkay mar labaad buu ku noqodkii labaad soo ku socda ayaa daacuun baa dhacay Abdullah ibn Auf oo sheego ku yiri radiyallahu anhu ku yiri waxaan maqlay rasuulka oo leh hadaad maqashaan meel baa daacuun ka dhacay ha galina idinku kuwa ku jiraan inay ka soo bixin halkaas uu joogo burkhada ka joogsaday meeshaasi waxa la cabiraa 25,000 ilaa 30,000 inay meesha ku dhinteen Dimashq waxa ay kala badh ama ka badan baa dhintay magaaladu way faaruq bay noqotay magaaladii saxaabadii aaway Mu'aad bin Jabal Abdullah aaway Abu Ubayda Amir Jarrah aaway ragii ugu cuslaa muslimiinta halkaas ku tageen marka muslim iyo gal ma kala yaqaan bahalkani
kuwii rasuulka ag fadhiistay ayaa ku dhintay saas awgeed innaga waxaa lanaga doonaya waxaan fahamna markaa noocani waa nooca hargabka keena corona la yidhaahdaa waa virus yar fayraskaa marka laga sheekeynayo berigaanu baranaynay waanu iyaabi jirnayo waxaa la furayaa microscope-ka waad eegaysaa 200 jeer 500 jeer 1000 jeer marka la kordhiyo ayaa lagu leeyahay waxa ina dhibicda madow ma arkaysaa waa la weynay waxaasa haddana bilaadanka dhibaya waxaa quwadda bilaadanka sheegtay ee dayaxaan tagni hawada tagni la isku haysto kaasa ina dhibaataynaya haddaba bahalkan maanta muxuu kaga duwaya kuwii hore waxaa dhashay ku dhexe oo loo oran jiray hargabka caadiga waa naqaanaa waa kan nagu dhacmo kastaba mar sanku galaa mar indhaha ayuu dufa keenaa mar xumad buu keenaa mar cunuhu ku dhigaayo waa dadka qof iyo xumad buu ku keenaa mar xabeeb buu keenaa waa dabeecadda ku naqaano hargabka ku naqaano weeyaan kaa keena magaciisa corona waa kan weeyaan haddaba noocan oo tadawuray ayaa loo bixiyay SARS xaggaa bari uu ka yimid Shiinaha agaarkeeda 2003 waa la qabtay markiiba 800 qof meelaas uu dilay ilaahay bay naga badbaadiyay laakiin khatar buu ahaa waxaa kaloo ka bilaabmay Sacuudiga iyo Carabta agaarkooda nooc kaloo geeyla iyo laga qaadi jiro degdeg isna ahaayo ilaahay uu naga qabto MERS baa loo bixiyay isna ilaahay uu naga qabtay kan maanta dhashay ee COVID loo bixiyay oo coronavirus disease macnaheedu la soo daray baa loo yiri waxaa la helay sanadkii dhaweed 2019 baa la helay marka 80% uu shabahaa kii mataqaanaa koronihii caadiga uu shabahay hargabka keenay laakiin 20 kan u dheeriyo faafidiisa degdega cilada uu keenayna way ka xoog badan tahay taasaa keenaysa marka inuu degdeg u faafo adduunyada ku dhacdo khilaafka sunnada rasuulka ee ay ku dhaceen ummadahooda ku dhaceen sallallahu alayhi wasallam baa waxaan keenay haddii marka cilmiga aan dabaqi lahayn bari hore wax buu hagaagi lahaayeen yaan laga soo bixin meesha daacuunka diloor lahaa adduunka yaa gaarsiiyay wax diyaarad baa gaarsiisay adduunka maanta waxa laga cabanayaa San Salvador iyo Chile oo ugu fog adduunyada laga cabanayaa iyo Shiinaha agtiisii iyo Mareykan iyo Yurub iyo Afrika waa laga cabanayaa yaa keenay diyaarad baa keentay wara soo bixina soo ma hayn anigu waxaan la yaabanahay dadkeena maanta ku dagaalamaya Ingiriisiga intay ka yimaadeen Mareykan meel ugu cuslaayo xanuun ka dhacay kullu waxaan tageynaa Hargeysa waxaan tageynaa iyo goboladii dalkan tageynaa war maxay naga soo doonayaan maalmihii masaa'ibka la jooga naga jooga war meen ahayn xaqiiqatu taas weey maxay naga soo doonay maanta kale waa maalmihii cuslaaba ku jirna samaaha inay joogaan weeyaan oo ummadda aanay dhibin sida oo kale waxa loo baahan yahay maanta oo kale markaynu fahamno xanuunkan uu qofka suu u faafaa anwaac ku faafaa cudurrada kale hal nooc ku faafi jireen qaar waxa loo yaqaanaa waterborne disease biyaha raacaan oo daacuunada yar ee shubanka iyo wax la mid ah kuwaas ka mid ah qaarkood hawaday raacaan airborne disease baa la yiraahdaa qufaca iyo hargabka waxaas ay raacaan iyo samboorka iyo bay raacaan kuwaasna waxa hawaday raacaan kuwa contact baa la yiraahdaa taabashada iyo istataabashada waxaas qofka laga qaadaa qaarna feeka oral balad qofkii shubanka iyo biyaha wuxuu sii daayay haduu nadaafada hagaajin waayo uu hadhow raashin iyo wax la taabto ama jeermis kale ama dakhsi waxaas ay taabtaan raashinka ayay keenaanoo iyagana dhibaato waxa kaasa keentay qaarna isku tagga iyo wax la mid ah dhiigga iyo isku rag dumarka rag wax noocaas ah keeno sida AIDS oo kale isna waa nooca kale noocan waa noocii qufac u keenaya marka qayb kamid ka uu yeeshay kii istaabashada uu yeesho kontaadkiina uu noqday kii xagga dambe laga qaadayo qofka bilaadanka hadii uu suuliga gala soo saddexdii waa la tijaabiyay saxaarada qofka la baaray waa laga helay balqadkii duufkii qofka waa la cabiray waxa uu qofku goo muxuu taabtaa wajigiisa waxa ay maalintii 34 jeer ilaa 4 jeer buu taabtaa qofku saka taabataya isha taabataya taabataya istantiri wuxuu tiriyaaba aagaarka waxa taabanaysaa 4 jeer ilaa 40 jeer baa taabataa qof bilaadan ah tahay dabeedna wixii ma haday ku yar taabtaan idin xaqna wax laga galaya xaqna ka soo galeen marka uu dhaadhacana wuxuu fadhiisanayaa intaas sanka hoostiisa ilaa hunguriga ayuu fadhiisanayaa qaybta loo yaqaano fariijigu fadhiisanaya halka markuu fadhiisto wuxuu ku keenayaa qufac iyo xumad buu keenayaa qofku qufacaya uu xumadoonaya waxa dhawaa markuu ugu daran yahay qofka uu faafinayo weeyaan masaako kale ilaahay ugu ma keeno anoo yar xanuunsan oo ciladii dareemay nashaadna waan dareemaya war fiican hadan meelaan ku qufaco la kala bixi maayo badde waa dhibaato ka istaagantay marka waxa la soo qaaday marka midal baa la soo qaaday waxa la yiri maalintii ugu horeysay way garan waayeen degdegan u faafay war waxaan muxuu yahay cilmi baaris culimada isku noqotay waa bal soo qabto qof qaba waa bal balqan ka soo qaada war eega aad baa loo baaray
waxay yiraahdeen niyo malaha salaanta ku faafaya kaliya saata naga daayay hadee degdegii baa laga siiyaa waxay yiraahdeen waan eegno qof markuu hundhisoodo ama qufuco dhibca ka soo yarbaxa nima saaxiibna baa ilkala markuu kaftamayo buu yiri warriyo inaan ilkala wax xasuustaa markay hor fadhiya wajiga iska masax mar ida waxba isaga sii deynaya markaa uu xasuustaa buu yiri waa tabtiyo kale markaad tiraado balqan biyo leh air drops baleeraa biyo yar wada ayaa soo wada duulaya dhammaan bahawada galaya 3 saacadood bi xaqiijiyeen maalintii dawladda ugu horeysay imikana 8 saacadood bi xaqiijiyeen casarka ninka nagu qufacay ilaa cishaa uu joogay mashaadka wixii hawadu ku jiraya 8 saacadood soo markiisi dhibkaas baal ku leeyahay su'aashu waxay hadaba qaabku u faafaya weeyaan tusaale wuxuu soo qaateen gabadh loo bixiyay patient number 31 gabadhaas waxa weeyaan waa bukaankii koobi shadanaad shiina bay ahayd waxay soo gashay Korea mishiinkii yara lagu eegay kiira xumadda kan xumadu buu sheegay cilmi kale ma sheego dheed buu yiri ma oranayo deedna gabadhu waxay socod suuqay gashay waa idaacad ba ka soo radinay ka soo sirdinay way soo qaaday gabadhii accident ba ku soo dhacay dhakhtarkii baa hilmaamay uu eegay xumadii buu ka arkay haddana wuxuu yiri warnaagta gaariga hoos gashay jugtu ku dhacday gaarigu accident kula galay malaha naxdintii iyo wixii baa isku biirbiiray iyo meejin erneysii daatar waa naxday buu yiri naga sii daayay idan xanuunka bay qabtaa way dhaqaaqdo markii xumadii xoog u qabatay bay iskaanishad gashay kaanishada ku soo ducaysatay way ka tagtay haddana tu kale gashay samaahan xumadii bay hayn kari weyday dhakhtarkii bay tagtay dhakhtarku imika mishiinka degdega loo baaray shaata ka daqiiqo soo saaray lama hayn markaa waa lagu eegay waxay tiri imisa 4 saacadood sugaysaa baa leeyahay ara soo qaday bay tiri horta waa yahay aan seexdaada doontaan maqaaxi hilibka lagu cuno maartay didan bay tagtay haddana way ka soo noqotay hadhow bay magaaladii wada xanuunsan ka daba timid gabadhii baa leeyahay xageetay torta noo sheeg waxay tiri horta kaniisada waa ka soo ducaystay taa kale waa ka soo ducaystay intii baa la isku cabiray 1250 qof bay noqdeen balaas iyagii waxay sii qaadsiiyeen 5840 bay noqdeen waxa la yiri 60% dalka Kuuriyada Koonfureed dadka qaba gabadhaas ay eersadeen waa qof kaliya markaysa marka maxay ka fahmeynaa aanoo ilaahay ugu ma keena maanta qaba haddana ku qufuco deena waa sareysmaysan dhamaantiinba saa uga sababta lagu leeyahay war ururka goobaha cibaadada masaajid ha noqoto waa hergaalada kaniisada ha noqoto waa ka joojiyay bahalkii maxaa Netanyahu maxay magaceedii meelaha sina gaariska yiraahdaan ku tukadaan kanaa'isku baashi yuhuudu waxa la joojiyay goob kasta waa la joojiyay goobaha ciyaaraha goobaha sportiga goobaha mataqaana waxbarashada waa kala wada cabsoonaya marka wax kala ma waa fiditaanka degdeg u bahalku fidayo kaas horta waa qodob weeyaan qodobka kale ee muhiimka waa maxay marka la leeyahay masaaxira suuliga de waa meeshii balqankii qofkii iyo wasaqdi ku tufiyo ku cadeynayay sida oo kale suuligiina waa meeshii uu ku soo saxaroonayay inta waxaan calaamad laga qaada ku taala intaba dib baa ka iman karta markaa qodobka kale ee muhiimka waa maxay meesha yaala daweyntiisu ilaa hadda dawo dhaba oo xaqiiqa looma hayo laakiin maxaa la hayaa war qofkani marka uu hunguriga ku dhufto ugu horeysa waa caadi waxay leeyihiin dadku markuu boqolleyda ku dhaco 100 qof 80% dadkaasi saf marbu ku noqda xumad iyo garaac iyo qof haribka naqaano kale uu noqonaya laakiin waxay leeyihiin 20% ku cuslaadaa 20% ku cuslaadayna 3.4% buu dilayaa markaa dadka muxuu ku dhifanay wax kala ma aha dhuuntii iyo sanbabadu waxay ka kooban yihiin saan naqaan hilibkeena cas iyo xoog galaan naqaan markaan xoolaha qaleen wanaga aragnay iyo wuxuu tuumbooyinka hawada dhex yaacaya bronkiska iyo wixii la mid ah marka tira waxa soo faafinaya sanbabadaada waa hawada galaysa weeyaan tuumbadii buu soo qabanaya isagu markaasuu weliba nabarro ku sameynaya oo bararna ku sameynaya ma dhacday ma ka qaaday naqaskii qof ma qaadan kara marka waxa ma ka dejinayo qofka xanuunsan qofka qaba wadna xanuunka wax kala ma aha kan buu la dagaalamaya qofka naqaskiiba ka soo bixila marka kii wadna xanuunka qabay kii xiiqda qabay uu ku siyooday uu dilay markaaba marka dadka da'da loo haystay markii hore oo wadanka Talyaaniga Shiinaha wadamadaas boqolleyda marka la cabiro waxa leeyahay dadka tayo laakiin saaka waxba isbedelay New York governorkeedii baa hadda wuxuu yiri dadka ugu badan ku dhacay 340% waa dhalinyarada loo yaqaano la yiraahdo waxa la yiraahdaa
adad hulka lama kala yiraahdo weeyaan daada adugu waxa weeyaan ka bilaabanta 25 wixii ka sareeya way yar weynaadeen haddana mayna wax weyn may gaadhin soddonku way gaadheen markaa daadaas ugu badan ayuu maanta la cadeeyay Mareykankii cadeeyay marka waxaan kala jeednaa inagu ma garanayno qodobka ugu dambeeya waa maxay muhiimka walaalayaal haddaba masaa'ibkaasi markay yimaadaan inaguna taxalal loo baahan yahay ka soo qaad waxaan qabaa anigu xiiq baan qabaa maye feeraha mar hore dhaxal iga duway may culays baan dareemayaa waxaan nahay waa ka fiqiigi noo fadhiyay waxaan nahay shaafiiciyaan nahay waa sunna muakkada jamco warniyahow hadaa ka yarjooga ka warrama maanta yar nasto oo masiibada isla dhinac maray oo suurtagal diinta ku ogol inta ma laga xidhin masaajidkaba idan xarabka waa la xidho waa la xidhi doonaa dilo doonay waa qodobka labaad ee meesha yaala warkii xanuunsanow hargab baad ku aragtay maanta waad qufacaysaa xumad baad leedahay inaad dadka ha dhibin gurigaaga si yar joog hadduu wixii noqdana ha kugu ekaada adiga haddii uu noqon waayo hargab caadi noqdana dee wuu kaa bixi doonaaye iska joog gurigaaga ummadda ha saraynin waa qodobo muhiim oo meesha ku jira weeyaan marka waxaa la bulsho weynta caalamka maxaa laga badbaadayaa iminka tan la guryaha jooga laba faa'iido ku jirta waa faa'iidada koowaad waxa ku jirta horta faafidii joojiya waa faa'iidada labaad waxa ku jira dhakhtarradii baa imtixaan galay isbitaalka nooguna waa ka hargeyso 400 sano bataal ana ka shaqeeyay isbitaalada magaalada lagu furay cusub ee waaweyn way jiraan laakiin waa 90 iyo 60 iyo 70 sano waxa soo ugu waaweyn waa yahay ilaahay ma qadariyaa soo dhacay waxa soo dhacay maaha waa boqolaal bili aadana absad shay waxa lagu dhufanayaa kaliya imika bulshooyinka Soomaaliland waxaanu ku dhufanaynaa sidii caadiga insurance risk caadiga la soo saaray ama morbidity rate la soo saaray waxayaan 3.5 tiradana ku dhufo waxa weeyaan 3 milyan barbaan ama 4 milyan baan ku dhufo 122,500 qof soo dhacaysa haye sarraha ka saga yeelan horta 400 sano ka shaqeynay dadka inta xigil isdiixinaya ma waxa la guryihiina jooga qofka naqas ku qabto noo soo sheego weeyaan saas weeyaan waxa lagu leeyahay self isolation lagu sheegay waxa weeye xanuunkii waa laga helay waa dhibaataysan tahay guriga iska dhex fadhi dawaba looma haynba noo xargabo qolka soo xidh hadhow toolan waxa weeyaan hadduu sii ku kulaado ku soo qaadayna balagala jeeda macnaheedu dambaana ku jirto bulshooyinka dadku ma qaban karayso hadaa daawataan sawirada Talyaaniga iyo laga keenay Isbaaniya iyo laga keenay waxa la keenaya isbitaalkii buuxsamay طريقيده بوحسمي وحي ودا بوحسمي استالك هريسو بوحسمي وحي ودا بوحسمي قلبكين لما غادي لما سمينايو ninka la yiraahdo imika gofarnaka niyo wuxuu ku cabaadayay war mishiina ii sameeya markaasuu Trumpna wuxuu aqbalay 2 trilyan oo lacag aqbalay haddana markay cabireen waxay yiraahdeen 2,000 oo mishiin baa la sameyn karaa labadii weekba waayo wixii marka birtii la sameeyo la saxo hada tijaabo u baahan tahay lacagta hala bixiyo laakiin waa maxay maalintii 6 baa soo dhacaysa ma isqaadi kartaa markaa isma qaadaysa marna saa awgeed waa masiibo haddaba waxaan u baahnay walaalayaal kow dhowr qodob baan u baahnay muhiim ah inaga dhexdeena inaan isqaadno horta cabsoon mayno ya ma cabsoonna qul lan yusibna illa ma kataba Allahu lana taartana minna وقدر كلابادي قارقة قفك قرقمة داعونك قفك دلو قبضة اسكوك قوضا قفك ضبك حليلو دمان محي هاي سنة حقي ذا شو هذه هاي سماحا شهيد نوات هديك هو دعدنا هرت ما كنا دعيسو يلهي لكم مكانه هديك دعدنا أذكيسو هذا كله مثلا شهيد باته هرت أنت صورت وقدر ويان قدر كلابادي مهم كم حي إن أنا بروسيجر كي قادر لما وحي تلا بحنين قادرنا علماء ذوي هذا الشيء خاطرته way hadleen taladii qaado hadiidin walaal hadiidin oo sunnadii rasuulka ka mid tahay waxa lagu sheegayaa khilaafka la khilaafay uma laga soo dhaqaaqay waa qodobka saddexaad waa maalintan ugu baahi badannahay midnimo ugu baahi maanta oo kale waxa maalinta amarka askariga la adeeco weeyaan tusaale soo qaata shiinihii amar uu bixiyo wuxuu yiri ninka baxa isaga ka masuula tawaasi qanaano taangi waa la mariyaa qofka ولا سيقارنا نقول بقولوا جوجي طلياني جبال الله يرى والديمقراطي كالا يسوع هيدا ورد كاشرابنا الدابير كاشرابنا أن كاشرابنا محي جارسيسي كاسي جارسيسي شلي وحن دوريني إن الشينا أو دخاتي ووهان ماشى بلاد كده عليه كبلا أبي كم إذا ذاك يحسوا دوي وصاد ولا تبرع بحيشونه هو يمدي طلياني
marka hadal buu jeeday markuu magaalada soo arkay wuxuu war tareenadii baa shaqeynaya basaskii baa shaqeynaya ummadii baa isdhex socoto wari meelihii wax lagu cunayaa furmiyad waalantihiin haddana dhimasho inta leeg baa sheeganaysaan war dadka maamul oo control wala control laaya macnaheedu waxaan kala jeednaa markan oo kale waa marka amarka iyo isku dumada la qaato waa maslaxadeena ku jirta ummadi jiri mayso niman yaho marka waad maqasheen baan jeclahay qowm caadi marka laga sheekeenay ummadaas la soo halaagay bari hore ideen imika waxaan idin sheegayaa waxaan lagu sheegay mashiinadan ba hargeysa inta noo taalla inta buurama taalla inta taalla burcaya iyo ceergaaba hadii lagu tiriyo wuxuba 10 xabood ma gaarayaan cabirna muxuu noqonayaa marka inagu waxaan leenahay waxa soo dhacay 122 baa soo dhacay leenahay hadayba dhacdaba waxa loo yaqaanaa aswa ihtimaalaat worst case scenario leeyahay marka masaa'ibkan dhacan baa lagu cabiraa oo leeyahay war maxaa dhici kara maxaan ka hortagnaa lacag maxaan diyaarsanaa baa leeyahay saa awgeed waxaan u baahannahay inaan haddana iska hashano mar labaad dawladdana aan lagu dayn kaligeedii war culimadu ay kacdo ganacsato ay kacdo maanta maalintii ugu ajar badan ba taagan tihiin ninka soo iibiyo kun mishiino sanka lagu xidho afka qofka laga geliyo buufiyo ma taqaana sababadiisa oo badbaadiyo ma taqaana kun qof aakhiri adduun ba jar buu helayaa xaqiiqatan waa maalintii la iskaalmeeyay maanta kale weeye waa maalintii la isku tabarucay marka waxaan ku dhiirigelinayaa guddiyada shacabka iyo culimada tujaarta iyo waxgaradku xaqiiq maanta la kacweeyaan oo lacag la keeno oo istifaacad la keeno oo hatta bari waxa iman doonta warteendooyin baan u baahno waxa naga dhamaaday sariirihii ilaahay nagu ma keenay marka waxaan digniinta ma soo jeedinay walaalayaal ilaahay idinka horta awood ma hayno allah inaga hayo wallahi ducafaana tabar ma hayno awood ma hayno cilmigeedii ma hayno qalabkeedii ma hayno ilaahu naga hayo ilaahu sidii qoladii la oran jiray maxay idin sheega Soomaalida qoladii maxay moodi meel kastoo la maray imika koonfurta ee bariga waxa lagu yaqaan ajuuraan baa laga yaqaan adduunyada xukumi jiray xagay mareen horta ma fanta la isay masaxad maxaa la garan maayo macna waxa kala jeedaa saasa loo dabar go'aya nimayo sumarkaysan marka ilaahay naga hayo ubadka quruxda badan iyo odayaasha quruxda badan in naga tagaan dooni meynay ilaahu naga hayo ilaahu wada waaxid naga hayo waa masiibo culus oo soo korodhay xalay nin baa Sacuudiga la soo hadlay wuxuu yiri horteeda waxa maraya dabaq buu saarnaa 6 gaari oo ku wax buufiya baab soo buufinay buud ayo sidii booyada waaweyn waxa hor socda buu yiri ambulance wuxuu leeyahay dadka soo bixina gurina jooga war baahidiina anaga idinkeena fadhi ayuu leeyahay buu wuxuu yiri markaan kan arko umar xawsana dalkeena xawsana buu duruuftan ku jirnay wax la'aanteeni alla ilaahu naga hay sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xabagabaygiyo ila durkiina waxaan ku soo deeyay dardargeliya hawlaha dacwada oo dadka u baaqa xumaha diida jawrkana ka diga oo dulmiga maaga macruufkana alla doonayay deeqsi ku ahaada